shan qof oo aan qabriga Ilaahay ku cadaabayn haddii ay dembiyo sameeyaan. Waa ayo ma ka mid tahay? Haddaba inta aanan kuu sheegin waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe noo saarto. Nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi qabrigu waa beer ka mid ah beeraha jannada ama waa god ka mid ah godadka naarta. Sidoo kale wuxuu yidhi rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxaa laga tusay in qubuuraha laydinku fitnaynayo oo laydinku cadaabayo. Haddaba waxaa jira 5 qof oo aan iyaga qabriga lagu fitnaynayn oo aan lagu cadaabayn. Qofka koowaad waa ruuxa joogteeya akhrinta suuratu al-mulki ama tabaarak habeen kasta markuu seexanayo ee uu sii gamayo intaanu seexan ka hor waa inuu sii akhristo suuratu al-mulki ama suuratu tabaarak sida uu noo sheegay Nebigu sallallahu calayhi wasallam. Qofka labaad waa qofka dhinta maalinka Jimcaha ama habeenka Jimcaha. Waxa uu yidhi Nebigu sallallahu calayhi wasallam ma jiro qof muslim ah oo dhinta ama geeriyooda maalinka Jimcaha ama habeenka Jimcaha. Hadduu jiro Ilaahay ayaa ka ilaaliya cadaabul qabriga. Waxa wariyay Tirmidhi. Qofka saddexaad waa qofka calool xanuun u dhinta. Waxa uu yidhi Nebigu sallallahu calayhi wasallam qofka u dhinta calool xanuun ama xanuun caloosha ah u dhinta laguma cadaabo qabriga. Waxa wariyay Axmed iyo Nisaa'i. Qofka afraad waa qofka dhinta isaga oo ka mid ah ciidanka gaalada hortaagan ee gaarka ah. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qofka dhinta isaga oo gaarka ku jira waxa laga ilaaliyaa cadaabul qabriga. Qofka shanaad waa qofka la dilo Ilaahay dartii loo dilo ee shahiidka ah.